وشيكدي لما قعب حدي لبا إسلوايي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ميلك استاد دونيدا كجوجتان صاحبada qaaliga ah waxaan idin rajeynayaa inaad xaalad fiican ku jirtaan. Kii dhibaataysan dhibta Allah ka saaro, kii xanuunsan Allah caafimaad ha siiyo. Fadlan walaysa amran waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka inoo like gareysaan, inoo subscribe gareysaan YouTube-ka, sidoo kalena ra'yigaaga noogu reebtaan dhanka faalooyinka. Aad iyo aad ay muhiim inoogu tahay inaad ra'yigaaga inala wadaagto. qaybtani waa qaybtii saddexaad ee sheekada. muddo toddobaad ah kadib ayaa saaxiibadii waxay ku kulmeen waa Aadan iyo Axmed. meherad ay lahayd gabar la oran jiray Hibo, taas oo ay mararka qaarkood saaxiibadani shaaha u doonan jireen. Hibo waa gabadh garoob ah, hal gabar oo horey u dhashay. waxay ku jirtaa da'da sodomeeyada, waxaana damac kaga jira Axmed Suurad oo la dhacsan gabadhan oo aad ayuu u helay. haddii ay meeshii yimaadeen oo shaah iyo kafee isku dhufteen ayaa Axmed yiri war Aadan oo arrinkii waan galay, gabadhiina way ku aqbashay, arrinkaana sida ugu dhaqsiyaha badan ayaan u galeynaa. inta markii uu ku yiri Aadan waxa hortimid kaamil oo suuradeedii quruxda badnayd ay u dhameystiran tahay. gabadh ideed u buuxda ay ahayd hal mar buu sawirtay wajigeedii uusan waligii arag gabadh ka qurux badan. jid uusan ku arag haween leh haddii uu arkana ay fara ku tirs yihiin. nimcadaas uu ka qaday intuu hoos ka gocday buu fakarkiisii wuxuu ku jaangooyay laba isla waayay. qofku jecel adna aad jeceshahay hel isla waayay. Axmed ayaa arkay saaxiibkiis Aadan oo fakar dheer ku maqan, markaasuu ku yiri war saaxiib maxaa ku helay, halkee ku maqan tahay, gabigaaguba maqan jooga ayaad noqotay. intuu soo baraarugay buu yiri war farxad leh baad ii sheegtay oo igu bishaaraysay, anna waxaan guda galayaa xafladii aan gabadhaas idinkaga soo doonan lahaa. Axmed ayaa yiri hadda dhoodi ogow, dhoodi aday ku sigaysaaye kasoo daahin. say qosol bay hal mar gowsaha cadeeyeen, habeenkaasna sidaas ay ku kala dhamaadeen. Aadan waxa uu guda galay diyaarinta madashii uu gabadha dhoodi ah ku soo dooni lahaa. hool ayuu ka kiraystay hotel Horyaal, waxa uuna soo watay aabihiis oo magaalada deganaa iyo adeeradiis. madashii ayaa la isugu yimid, waxaa madasha soo xaadiray dad gaaraya 30 qof oo ka kala socda labada dhinac. waxayna halkaa ka bilaabeen siduu dhaqanku ahaa, hadalkii ahaa nasiya waan idin ka fadhinaa iyo idin siinay waan gudoonay iyo wax la mid ah. meher qurux badan oo aad uu isugu hawlay agaasinkeeda ayay ahayd. muuqaal qurux badan ayaa laga duubay. Aadan habeenka wuu faraxsanaa, waxa uu soo xasuustay xikmad ahayd nasiibka waxa u fiican kan alla kuu dooro. xidig baad doonaysay laakiin waxa dhici karta eeba in uu dayax kula doonayay. waa sidaas Aadan waxa madasha uga baxay lacag gaaraysa $2,000. 5,000 waxa uga haray 3,000, waxaana uu isleeyahay Allah ayow aroos weyn uma dhigi karee, ha igu ceebaynin reerkaas reer dibadeedka ah. dhudi ayaa ka soo degtay garoonka caalamiga ah ee Hidaraac. waxaa garoonka ku soo dhaweeyay adeerkeed Axmed, waxaana ay naba tagtay gurigiisii. dhanka kale Aadan waxa uu isku diyaariyay in uu la kulmo dhudi. waxa uu u kaxeeyay hotel Haldoor, halkaas oo ay habeen dhan ku sheekaysanayeen. waxa uu weydiiyay inay aroos doonayso. waxay ugu jawaabtay meherkii weynaa ee aad samaysay ayaa igu filan ee guri inoo kirey aan deganaano 2 bilood ee aan joogayo. wixii inta ka dambeeyana waan ku soo dacwoonayaa. kulankeenana waxa uu ka dhici doonaa wadanka aan laynka kaaga xarayn doono. wixii kharash ah ee kugu bixi doonana anaa dhiibi doona. wariyaa Aadan u duceeyay, malaha samirkii uu sabray ayuu sadkan quruxda badan ku helay. waatuu iska xarimay gabadhii loo diiday ee macaajirkeeda u soo bandhigtay. horaa Soomaalidu u tiri samraa sadkii hela. Aadan guri ayuu kireeyay, sidii ayayna ku dageen. nolol qurux badan ayay halka ku qaateen. dhudi waa inaan qurux badan dhuuban oo dhilan, dhex yar oo dhayda caanaha u eg. dhanka quruxda kama dhacdo kaamil haddaysan ba iyadu bara dheerayn. Aadan noloshii ugu quruxda badnayd ayuu ku jiraa. isma uusan oran habeenna kuma seexan weligiis. gabadh sida dhudi u qurux badan oo u dhowrsoon oo reer Maraykan ah baad heli doontaa. ducadii hooyadii iyo tii aabihii baa haleeshay oo macaati ayooyinkiis buu haystaa oo u duceeyay. waxa u shidan heestii ahayd dhanka kale gabadha Hiba ah ee meherada lahayd waxay ilma abti ahaayeen islaanta Boosteeya ee kaamil hooyadeed ah.
axmed ayaana u sheegay in saaxiibkiis aadan gabadhii dhudi ahayd ee maraykanka jirtay uu siiyey. hiba way garanaysaa wiilkan inuu yahay kii doonay gabadhay habaryarta u ahayd ee kaamil. towbay inta tiri ayay boosteeyo warkii oo dhigaysan dhabta u saartay. waxay ku tiri naaheedhe kii dayacnaa ee aadan ee aad gabadhaada u diidi jirtay sow ma xasuusatid mid axmed la yiraahdo oo meheradeeda ku xiran oo ay saaxiib ahaayeen baa gabadhii uu adeerka u ahaa ee maraykanka ku noolayd siiyey. boosteeyaa tiri wallah oo hadda ma guursaday say ku tiri hibo haa wuu guursadayoo hadda wayba aqal galeen. boosteeya oo nin maraykan ma ka weyday markii axadkan guursanayso. hibo garan maayee laakiin intaas ayaan ogahay anigu. dhanka gabadheeda kaamil waxaa haysta maalmahan walaac xanuun aysan weligeed isku arag ayay dareemaysaa. matag lalabo iyo wareer bay isku aragtay balse way iska luudaysaayo ma kala jecla wixii asiiba. taleefana dhagta kama qaado saadaq bay taleefanka daris ka noqdeen oo cirkaas ayay isla marayaan. muddo bilo ah kadib waxay dareentay kaamil uur in ay qaaday oo weliba calooshu kobocday. wax ay samayso ma taqaan balse culays iyo walwal saas ama hayo. saadaq ayaa hoos ka mihirsadayoo isaga ayaa iga dhalay bay odhan doontaa. ma kala jeclo oo waa tii horay wiilkay keensatay loogu diiday. waxayba doonaysaa waalidkeed inay muraara dilaacaan. xijaab weyn bay intaa xiran tahayoo maba dhigaysaba si aan loo fahmin. markii ay gaartay bilihii ugu dambeeyay ayay hooyadeed u sheegtay inay uur leedahay. maamadii cirkaa la wareegay dhulkaa la dhaqaaqay way dawaqday sara joogga ayay ka dhacday. haddii ay soo naaxdaba waxay tidhi naabala ku heshaye balaaba ku heshaye yaa uurka u leedahay. say ugu jawaabtay saadaqa dariskeenna ah dhimoo dhulku kula go. dib ayay koomo u gashay. habeenkii ayay soo naaxday. shaafici oo ku maqnaa safar ayaa taleefanka loogu sheegay waxa ku dhacay inantiisii iyo xaaladda ay ku sugan tahay. isagiina dhulkii baa sidoo kale ula wareegay. wuxuu dhuhu garan waayey indhuhu midig ka siiyey. dhuuntii baa xanuuntay dhiikar buu ku sigtay inuu ku dhaco. aadan isaga dacwadii ayaa loo bilaabay oo wadankaba waa ka hilhilan yahay oo ma wadan buu joogayaa. soo kii uu gabadh uu ka guursado uu ka waayay tii uu ka fahmayna soo loogama diidin. maraykan ayuu u socdaa macsalaameyn ayuu ku jiraa. xagga kaamil reerkoodii ay cuqubo dhex galgalanayaan oo maxay cuqubo u ahaan weyday hadday awal wax yaraan uga carareen wiilkan maskiinka ah ee sharfay sida quruxda badanna gabadhooda uga soo doonay ayna ugu abaalgudeen inay si foolxun gabadhooda ugu diidaan. haddana waxaa gabadhooda lagu raray uur waxaana ku raray wiil yaroo jaamacad xitaa aan dhigan shaqana warkeeda daa dugsi sare dhigta canjeeladana ka cuna guriga hooyadiis. shalaytan ayay galeen waxay ogaadeen oo garaysteen in ay nabsi ka galeen wiilkii maskiinka ahaa ee aadan. dhanka kale aadan waxa uu aaday caasimadda Itoobiya ee Addis Ababa halkaas oo uu safarkiisa inta ka dhiman ku qaadan doono. saaxiibayaal waa inoo iyo qaybta soo socota ee sheekadii laba isla waayay. muuqaalka inoo like gareeya inoo YouTube-kana inoo subscribe gareeya. idinka YouTube-ka iyo bahalkaanba ehel u ah ila shaqeeya si aynu u soo kobci lahayn anaguna sheekada aynu hadba sheekada ka macaan tahay aan idinku soo diyaarin lahaa.